Asalaamu calaykum saxaabteyda sharafta leh waa idin salaamay waa walaashiin Umu Mansuur waxaan rabaa inaan in la wadaago rooti yar rootigaas wuxuu iga dhacayaa berrito hadduu ilaahay ka raali noqdo marka waxaan is dhahay maadaama aan asaga dhan la wada cuni karinin waxaan rabaa inaan aan ka sameeyo intaan farmaajadaas iyo malaaygaas korka ka saaro inaan ilmaha uuniga u geliyo maadaama hal mar aan la dhameey karin marka idinkoo raali ah ila socda waa walaashiin Umu Mansuur marka ugu horeysa waxaan sameynayaa korkiisa waxaan marinayaa alaabtaasaan saas u marinaa markaan saas u marsado dhinacyada dhan aan ka mariyo waxaan soo qaadanaa malaaygeygii markaan soo qaato saasaan u marinayaa saas markaan u mariyo waxaa rootiga markaa aragtid inuu kaa dhici rabo intaa qashinka ku dari lahayd waa xaaraan waana xoolahaadi waa qashinka ugu dareysaa saasa u habeysanaysaa intaa qashinka ku dari lahayd waxaan soo qaadanaa farmaajadii markaan farmaajada soo qaado saasaan u dul saaraa farmaajada saasaan farmaajada u dul saaraa ilmaha farmaajada waa ogtiin way iska jecel yihiin weli waan sii dul saarayaa ilmaha aaday farmaajada u jecel yihiin markasta dhinacaas kalena saan uga saarayaa kadib waan qaadayaa halkaan aan saaranaynaa marka markaasa dana xabadkeyga kalaan soo qabsanaa sidaas u marsanaynaa marka saasaa qurux badan inaa waxaada isku habeysatid hooyada waxaa waa midii gurigeeda wixii yaal wax ka soo saarato oo aqligeeda ka shaqaysiiso mesh wax walba markay kaa dhamaadaan markay kaa halaabi rabaa inaad dukaanka le u carartido shilinkaada aad dabka kusoo shubtid saasaa lagaa rabaa waxaada inaad u sameysatid markaasaa halkaasaan soo dhiganay xabad kalaan soo qabsanaynaa rooti waxaan ku markaa rooti caadiga cunaysid iyo markaa cunaysid rooti oo maaragta waxyar biidsa laga dhigay way kala macaan tahay waxyar waxaan ku batay ketchup-kaan ku batay saasaataa way dul saaranaysaa ka raali noqda waxaan ku dhahay waxaa ii badbadayso cashadeydiyaa ii karsameyso soo darteeda waxaan ku dhahay rootiga in la wadaagaa cashadeyda dabka ii saaran saasaa meesha u saaranaysaa xabadkeena kalaa soo qabsanaynaa raali noqda ninkii reerka u yaraayaa qolka ku jiro isaga waxaa laga yaabaa inuu meeshaas aa codkiisa ka maqashiin meeshaan qashinka laguma daraayo sababta qashinka waxaa wax ku dara dad kibirsan laakiin anaga waxaana la dhahaa qurbo joog waxba qashinka ma ku darno rootigaas marka inta lama dhammeyn karo maadaama uu badan yahay laakiin marka saan loo sameeyo horuu ka soconaya maadaama ilmihiina ay iska jecel yihiin inay farmaajada cunaan markaasa saasaa loo sameynayaa waan saaranaynaa farmaajadeennii
xabadeeni kalaan soo qabsanay. labada dhinac waa isku mid ah. Dhinaci markaas isleedahay dhinacaasaan jecelahay waa us dhigan kartaa, oo farqiya ma laha. maadaama ilmaha ay jecel yihiin waan ugu badinayaa. marka aqliga waa inuu shaqeeyaa walaalayaalo, oo wax kasta qashinka lala aadin. waxaan qashinka ku daraysid dadaa maanta waxay cunaan la. adigana haddaad tiraahdo waxaa cuntaan daadinaa maalin kasta, xaaraanna way tahay oo aakhiro ma fiicno. adduunyadiina waxaa waaye waxaadiyaa iska halaysayoo mid kalaa soo gaday. marka adile mar walba dhiban. marka waxaada habayso intaad dukaanka aadi lahayd, waxaada dhagdhag isku siisay intaad dukaanka aadi lahayd. waxaa kaloo sameyn kartaa haddaa rabtid basal iyo karooto iyo korka ka saaran kartaa haddaa rabtid waa. laakiin ani hadda ma rabo inaan basal iyo waxaas aan korka ka saaro, sababto aniga waxaan jeclaa ilmaha waxay cunayaan inaan la cuno. hadii kale hadhowt waxaa lagu leeyahay hooyo waxaa aad cunaysidaa fiican isii. marka ana ma jecli ilmaha in ay bartaan dadka waaweyn waxay cunayaan cuntada, iyo adoo haysta cunugiina inta kula dhago akhlaaq xumay ka qaadayaan. berina meel kastay tagaan saasay sameynayaan, mana yaqaanaan qofkaan adiga hooyadaa waayo. iyo halka xabba ugu dambeeyay waxaan sameyneynaa, waxaan saarnay malaay badan. ilmaha ma ay jeclo, sidaas darteed waxaan ma rabin inaan wax badan saaro, laakiin jiiskaasay jecel yihiin. halkaas saxan oo noo noqday waa ujeediin. sameyneynaa marka hadda uuniga aan gashaneynaa. marka uuniga kasoo baxo asku keen balan insha allah. waa kaasaa markuu saxanka dhan ku wada jiro saasuu noo noqday. halkaas saxan oo noo noqday. kuwan waxaan sameeyey, waxaa mariyay wax yar cusbo yaraa mariyay dhowrkaas xabo. ilmaha cusbada ma u fiicno, marka saas fiican waa ugu jeediinaa u maleynayaa. kaasa saas noqday. hadda uunigaa gelineynaa. wuxuu ku jirayaa 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo. waa 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo. markaasaan kasoo bixinayaa. waxay ku xiranta uunigaada iyo 200 aana u geynaysaa 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo. markay farmaajada dhalaashaba horaan kasoo saarayaa. markaan kasoo saaro aan noo ballan walaalahay. markaas asxaabteeda saasuu kusoo baxay. waa ujeediin farmaajada saasay ugu kor dhalaashay. waa la qabanaa hadeertaan. markuu qaboobo caagaa jab lagu siinaa, talaajada loo gelinayaa. insha allah beri subaxii ay ku quraacanayaan hadduu ilaahay ka raali noqdo. maxaa idin dhaha, waa walaashin Umu Mansuur oo idin leh markasto gacmo furan, qalbi furan, walaaltinimo kusoo dhawaada. aad iyo aad ugu mahadsantihiin sida aan mar walba noola garab taagan tihiin, dhiirigelinta, commentiga quruxda badan,
laaga sheerka aad iyo aad aan idinkaga mahad celinayaa. waxaan idin leeyahay maalintu ha idiin wacnaato meel kasta aad dunida ka joogtiin. walaashin Umu Mansuur oo idin leh farxad iigu noolaada. inta igu cusub waa soo dhaweynaa, inta hore iila joogtana la joogiina oo ku mahadsantihiin. marka waxyar kadib waxaan rabaa inaan inla wadaago cashada caawa aan raba inaan cuno, iyo sida maadaama aan hooyo shaqayso ahay oo aanan ka gaarin habeen walba inaan casho kariyo, sida aan marmarka qaar markaan caajisana guriga aan casho looga weyneynin. hadaasaa cashadeyda caawa waxaa waaye cambuulo. dadaa cambuulada ka faana, laakiin anagoo ku faanaa sababtoo kusoo kornay malabaan ku darsaday. waa ujeediin sokorta malabkaa ka fiican. halkan waxaa iigu jiro alaabtii, waa taasaa caagaasaan qami ku siiyey, meeshaan geliyey. waxaan sameeyey bacdi hilibkaan soo qaataa taasaa saasaan uga xirxirtay. kadibna waxaan gashanaa qaybta firinjeerkan oo barafkaan gashanaa. habeenkii loo baahdo oo caajis iga hayso ama marmaraya kaa qabanaysaa inaa caawa cambuulo cuntid, dhag firinjeerkaadaasaa kala soo baxaysaa, kadibna waa cunaysaa. marka waxaan idin leeyahay kheyr fara badan aan idin rajeynaa. waa walaashii Umu Mansuur oo idinka codsanayso subscribe-ka, like-ka, commentiga waa xaggiina. meel kastaa joogtiin bashbash iyo barwaaqo iigu noolaada, qalbi furan, walaaltinimo, farxad kusoo dhawaada. meel walbaa joogtiin waxaan idin rajeynayaa bashbash iyo barwaaqo inaa ku noolaatiin.